طريق الله أحياني من الأحزان أنجاني ويأخذني إلى عفو وفوز بعد خسران طريق الله أحياني من الأحزان أنجاني ويأخذني mararka qaarkood jabaatiga inta la soo dubo isagoo bisil baa hilibkii iyo qudaartii oo iyadana la soo hagaajiyay oo la soo khaleeyay baa dhexda laga gashaa sidaasana lagu cunaa halkan kaabajkan raba inaan ku karsado kaarooto iyo basal iyo kaabaj sidaasaan rabaa inaan kusoo kariyo insha allah oo waxeeda aan xawaashiyadeeda iyo waxeeda aan usoo dhammaystiro qudaartii waatana kaabajkii adduunkii waxaan isku soo dardarnay haddana waxaan ku daraynaa hilibkii chickenka oo gaarka aan usoo karinaan ku daraynaa markaasa hilibka chickenka ku daraynaa hilibkan chickenka aan ku darnay ama digaaga hilib digaag baan ku darnay kaabaj basal kii jabaatiga xoogaa saana u jilciyay waxaan rabaa inuu jilic noqdo saanaan u fidiyay jabaati waa isaga inta la laalaabo saliid yar dhexda laga mariyo uu soo furfurma raba kan tan hal maraan fidiyay dabkana wax yaraan tusay soo ma jeedaan dabka wax yaraan tusay marka waxaan rabaa inaan aan qudaartan ku kuraan raba insha allah qudaartan waxay ka koobantahay inta idiin sheegay waa nafaqo ilaahay way maanta masha allah sidaan rabnaa inaan samayno insha allah hadii la idmo yaanyadii aan soo shiilayna baa halkan ku shubay meeshaan rabaa inaan saas aan ugu safo baan rabaa insha allah hadii la idmo midkii kale aan soo qaatay haddana saanaan kusoo wadayaa kii kale haddana soo qaatay saanaan kusoo wadayaa meel gaar isagana raba inaan ku guro saana isagana wada ku wadaya hadii ilaahay idmo cheese baan dushka u shubayaa hoosna suuga iyo maaragtay fiican baa kaga jira iyo qudaar iyo wax kasta hadda cheese-ka baan ku shubayaa cheese-ka markaan ku shubayo wax aad iyo aad maaragtay u fiican marka saasaan waxaan kusoo gelinayaa oven-ka waan kusoo gelinayaa wax yar adiga 15 minutes ama 20 minutes ka badan waxaan ilaa jabaatigu waa bisil yahay waa ka soo saarnay oven-ka waa ka soo saarnay markaan ka soo saarnay waa kaasa waa wax aad u jilicsan qaadada xataa jari karta oo lagu enjoy garan karo aad iyo aad u macaan waa wax soo dumay oo aad iyo aad u macaan marka soo maaragtan soo jilicsan oo guud badan oo qurux badan yahay ma sha Allah habeenkan caawi ah waan isku jiri doonaa ma sha Allah tabarakallah wax macaan jabaatiga insaas loo samaysto qudaartii waa adoo laftarkeeda gudaha ka gelinaysaa ovenka gelinaysaa waa ku hurinaysaa cunada huuriska badanaa cunada kale oo caadiga biyaha xaruur kashay way ka macaantahay oo afurkeena ku jira cabitaankan anagu mar walba waa shiidanaa cabitaanka kan waxa weeyaan babaay wadankeena waa laga helaa si fiican baa looga helaa cananaskan baa olima umaleyn laakiin booska cananaska waxaad gashan kartaa wax kale markaas ama liin ama waxbaa gashan kartaa babeelmada oo kala gashan kartaa waa cananas maanta babaygan sanjabiisha qoyan ma lahan wax gaasa ma lahan sanjabiishan qoyan iyo geedka mintiga ama nacnac la dhaho Soomaalida nacnac u taqaanaa mintigan waa nacnac u taqaanaa intaas isku shiidanayna waa wax aad iyo aad u fiican oo dhameystiran oo balance ah cananaska waa kana qaarkan inta hadda waa ka soo jarjartay isagoo hadda aan rabo inaan ku sii darsadana waa rabaa waa kana midkaan oo kala weeye bismillaahi raxmaani raxiim afurkeeni waa noo soo gabagaboobay halkaas cadan cananaskii iyo ababay waa inoo yaala alaabteeni oo dhan waa taas afurkeeni maanta oo soo kan dhameystiran yahay ma sha Allah tabarakallah